magacayga waxa la yiraahdaa Ibrahim Ali Hussein waxa la igu casumay inaan chair gareeyo session kan oo ku saabsan climate adaptations runaantii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo oo chair gareeyo runtii waxaan u mahadcelinayaa Saacdiyo iyo tiimkeeda soo abaabulay marka intaas aan u gudbo climate change issue ama dhibaatada cimilada isbedesho maaha mid Soomaaliya ku gaar ah waa global issue adduunka oo dhan ay saameysay meelaha qaar daba ka kaco meelaha qaar mataqaana daadada ka kaco meelaha qaar wadamada qaar waa abaaro iyo waxba aafeeyo marka waa global issue hala kala daraado marka waxa adduunka ka socdona wax la yiraahdo mataqaana climate emergency response waxa laga bartay waxa kamid ah dadyooga qaar wadamada qaar ku nool waxay la qabsadeen cimilada isbedelayso marka waxay abuureen wax la yiraahdo community resilience dadka marka daad ku soo socdo sanadkiiba marba daad dhaco siday isaga ay ula falgali lahaayeen daadkaas ay uga tabaabashaysan lahaayeen ay u yareen lahaayeen waxyeelada daadkaas ka soo gaaro ama dabkaas ka soo gaaro ama abaarahaas ka soo gaaro marka waa community resilience ayaa la sameeyay oo la hormariyay dadkii lagu tababaray wixii u baahnaayeen la siiyay marka waa u diyaar garoobeen taa haddana waxa lagu tilmaamaa wax la yiraahdo climate adaptation bal in la qaato climate siduu yahay bal in lala falgalo khatartiisana la yeerayo inta markaan u gudbo waxyaabaha solutioniska ama xalka u ah climate change-ga waxa ugu horeeya awareness bal dadka in la wacyi geliyo oo la dhaho climate cimilada isbedelka dhibaatada ay leedahay sidaan ay isu bedeshaa abaarihii 10 sano socon mar iman jiray hadda waxay soo noqdaan 3 sano 2 sano ay soo noqdaan marka wacyi gelin dadka in la geliyo oo ah maxay ku dhacday iyo wixii la midka ah awareness kaas marka waa waxyaabaha loo baahan yahay in bulshada lagu wargeliyo gaar ahaan Soomaali markaan nahay waxyaabaha lagu mashquulay waxa kamid ah nabadgelyo xumada meel security problem jiro waxa jiro arrimo siyaasadeed iyo doorashooyin iyo isdabarad kala jiro marka dhinacii climate change-gi oo dadka aafeeyo oo barakiciyo oo dad badan u leedo war badan laga ma hayo si wixii laga yeeli lahaa iyo sidii loola mataqaana wax looga qaban lahaa intaba marka waxaan rabaa inaan ku hormariyo panelka halkan ay la joogo oo ah dad khibrad u leh mawduucan ah cimilada isbedelka cimilada waxa dhaliyo iyo saameynta ay ku yeelato wadankeena iyo waxyaabaha looga hortagi karo ama lagu yareyn karo bal inaan su'aalo ka weydiino oo ay noo faahfaahiyaan ayaan ugu horeysiinaynaa taas oo ah wacyigelinta marka ugu horeysan aan ku horeysiino aan ku bilaabo Cabdi Samed Xaaji Diiriye oo ah agaasimaha waaxda isbedelka cimilada wasaaradda cusub oo deegaanka hadda la aasaasay marka aan ku horeysiyo Cabdi Samed hadda noo yara faahfaahin karto isbedelka cimilada iyo sida Soomaaliya iyo regionka ay u saameyso baaxad inta ay la eg tahay hadii laga hayo wax report ah oo sanadkii la record gareeyo hadda noo faahfaahin karto cimilada isbedelka cimilada Soomaaliya iyo regionka guud ahaan bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan u salaamayaa madasha qiimaha badan ee maanta halkan aynu joogno tiimka soo abaabulay Dr. Saacdiye yana waan u mahadcelinayaa waan ku faraxsanahay inta noo dhalinyaro ah oo arrimaha deegaanka iyo sayniska barataynay ama danaynaya iyo khubarada iyo madaxda kale oo mashaariicda hogaamiyay iyagana qaybka arrimaha deegaanka inay ka soo qayb galaan haddaan wax yar dul istaago su'aasha ku saabsan isbedelka cimilada iyo Soomaaliya
isbeddelka cimilada Soomaaliya sida uu sheegay doctorku horta waa saameyn guud adduunka oo dhan wada saameynaysa weeye marka labaad adduunku laba sektor ayuu isbeddelka cimilada ku wajahaa qolo waxay ku wajahdaa qaybta la mitigation ama saameynta ay u geysanayaan sababta isbeddelka cimilada inay yareeyaan dalal kale oo kuwa inagu aynu ka mid ka nahay ay ugu horeeyaanna ama adduunka oo dhan uu qayb ka yahayna waa qaybta adaptation oo ah isbeddelka cimilo ee dhacay in lala qabsado ama la yareeyo nuglaashiyaha isbeddel cimilo ama saameynta isbeddelka cimilada ee jira iyo in la kobciyo capacity-ga bulshada ay u leedahay la qabsiga isbeddelka cimilada iyo sidoo kale in la kobciyo ama kor loo qaado institutionada dawladeed awoodda ay u leeyihiin inay cilmi baadhis ka sameeyaan ama xog ururin ka sameeyaan ama ay ka jawaabis u sameeyaan saameynta isbeddel cimilo ee dhacday markaan u imaado Soomaaliya sida ugu caansan afar faktor ayay isbeddelka cimiladu inaga soo noqdaan faktorka koobaad ee ku yimaada waa abaaraha faktorka labaad waa fatahaadaha oo inta badan ka dhaca gobollada koonfureed ee labada webi ay maraan faktorka saddexaad waa dabaylaha oo iyaguna inta badan ka dhaca gobollada bariga xeebaha badweynta Hindiya saaran faktorka saddexaad waa ayaxa oo isaguna inta badan u kala guura ama u kala gudba dalalka saameyn badanna u geysta dalagyada iyo daaqa afartaasi waa afarta faktor ugu muhiimsan hal faktor oo kala jira oo inagu aynaan aad u eegin isaguna saameyntiisa ka jiro isaguna ah waa kor u kaca badda iyo saameynta ka dhacda xeebaha oo iyaduna erosion badan uu ka jiro hal arin ayaan rabaa inaan dul istaago isla arintaasa oo inta badan aan fahamkeedu dhalinyarada iyo dadka aan deegaanka aad ugu tacalluqin oo xoogaa uu ka jiro waxa weeye mar disaster baa imanaya marna isbeddel cimilada laga hadlaya marna abaar baa laga hadlaya haddana waxa weeyaan waxa laga hadlaya biyo la'aan baa iyadana mar jirta waa chain isku wada xidhan ama silsilad marka u horeysa ka soo bilaabmaysa isbeddel cimilo inuu dhaco ama roob la'aan ha dhacdo ama roobku waqtigiisii ha ka soo bato oo hab aan loo adkaysan karin oo fatahaad keenaysa oo deegaanku aanu qaabili karin ha u yimaado labada jeerba markuu u yimaado waxa dhacaya environmental impact ama saameynta isbeddelka cimilada ay jirta ayaa dhacaysa oo ay koow ka tahay haddii daad dhaco waxa dhacaya erosion-kii baa dhacaya haddii roob la'aan ay dhacdana disaster-kii baa imanayo marka hore certification baa imanayo daaqii baa dhammaanaya daaqa intuu dhammaanayo xooluhu weli iyo dadku way sii deganaanayaan dabeetana waxaa imanaysa biyo la'aan marka biyo la waayo baa barakac imanaya markaasaa dadku ka guurayaan dhulkoodii oo displacement ay noqonayaan kadib baa markaa haddana uu bilaabmayaa in dadku qaxoonti noqdaan oo goobihii ay tagaan oo haddana humanitariankii uu ka sii bilaabmaya horta chainka isku xidhana caynkaasaa jirta markaan u imaado laba shay dunida sii kululaanaysa laakiin waxaa la ogaaday dunida inaysan sii kululaaneyn keliya laakiin cimilada inay isbedelayso that's why loo dhahay climate change isbeddelka cimilada marka waxay noqotay wax xasaasi ah oo dunida dhan ay noqoto qodob lagu daro ama ilaalinta deegaanka yani wax kasta ugu muhiimsan qorshooyinka dawladaha ay samaynayaan adduunyadana waxay ka noqotay in sanadkiiba hal mar la kulmo oo wax loo yaqaano convention of parts wadamada qaybaha ka ah heshiiska isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ay ku kulmaan si looga soo saaro qodobo wax ku ool ah ama lagu dhimi karo saas darteed marka laga soo tago
Soomaaliya contributionskeeda ay isbeddelka cimilada ay ku leedahay waa mid aad u kooban ama mid aad u yar. Sida uu aan presentation ku dhageysanaba isbeddelka cimilada waxa keena waxay tahay emissionska ama qiica tirada badan ee warshadaha ay sii deynayaan, populationka tirada badan ee batay, yani qaadashadooda hadday noqoto deegaan ahaan ama wax loo yaqaan urbanizationka, ama haddii ay noqoto wax loo yaqaano consumptionka oo ay qaadanayaan. Taas ayaa waxay keentay factor sababa in dunida balansigeeda uu dhumo. Soomaaliya marka laga hadlayo warshado badan ma lahan, laakiin waxay u tahay vulnerable ama mid u nugul isbeddelka cimilada. Dunidana waxaa lagu qiyaasaa Soomaaliya inay tahay waddan koowaad ama waddanka labaad marka laga hadlayo waddamada u nugul isbeddelka cimilada. Sanadkii 1970 oo contamination laga joogay ilaa hadda Soomaaliya waxay wajahday ilaa 14 xaalad abaar oo ah mid la dhihi karo mid aad u culus. Marka adduunyada kale waan ka duwannahay. Tan yaraynta dhuxusha iyo dabarjarka xaalufka marka laga hadlayo bedel way jiraan. Sanadka hadda ugu dambeeyay jaamacadda ummadda kulliyadda cilmiga deegaanka waxa ay soo saartay tijaabo ah in sabuulka marka la isticmaalo lafta sabuulka ku jirto laga samay karo ama loo bedeli karo biomass oo charcoal dhuxul laga samay karo. Ardaydii buugga difaacanaysa oo researchka samaynaysa oo aniga supervisorka ah waxaa ka mid ah Axmed oo jaamacadda ummadda ka tirsan. Runtii ardaydaas waxay soo saareen cilmi baaris waxtar u leh bulshada, bedeli karta dhuxusha, dadka reer miyiga ama dadka beeraleyda oo ah dadka ugu badan ee sameeyo geedaha jar ay ka faa'iidaysan karaan. Haddii cilmi baaristaas la hormariyo waxay keeni kartaa in laga maarmo isticmaalka dhuxusha. Sidoo kale waxaan samaynay wax loo yaqaano biogas oo ah saalada ama digada lo'da inaan ka soo saarnay gaas cuntada lagu karsan karo. Cilmi baaristaas waxaan samaynay sanadkii ka horreeyay isla ardayda jaamacadda sameeyeen. Taas waxay bedeli kartaa gaaska methaneka ee caadiga looga soo saaro fossil fuelska ama dhulka laga soo saaro. Waxayna keeni kartaa in qashinkii ama lo'dii ama geelii ama arigii digadoodii ama masaaladoodii in ay dadka reer miyiga ay ka faa'iidaystaan oo ay biogas ka soo saaraan. Marka dhuxusha mar walba bedel waa loo heli karaa. Waxaa kaloo jiro geedka loo yaqaano xilgaroobka ama garanwaaga in laga samayn karo dhuxul loo bedeli karo. Marka iyo teknoloji badan oo lagu faa'iidaysan karo. waa mahadsantahay xareed. Waxaan rabay inaan weydiiyo Axmed Cabdi Cusmaan Faroole oo isaga ah Somali Environmental Forum. Specifically si gaar ah ma nooga hadli kartaa dhirta la jaro Soomaaliya oo laga sameeyo dhuxusha, yani dhibaato intee leega ayay ku haysaa isbeddelka cimilada? Wax ma lahaya statistics reports ah wax lala socdo yani dhibaatada ay keentay guud ahaan Soomaaliya xaggee mataqaanaa arrimahaas problemku ka jiro? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد sida hore loo sheegay magacaygu waa Axmed Cabdi Cusmaan Faroole waxaan ahay Executive Director of Somali Environmental Forum oo ah platform u istaagay inuu arrimaha environment iyo climate change dalkeena maanta ka taagan inuu ka shaqeeyo. Farxadayna ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo programka. Soo kale waxaan sanadkan dhameeyay jaamacadda ummadda oo aan ka baxay kulliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka. Xaqiiqda marka laga hadlo maanta dalkeena wuxuu wajahayaa climate crisis ama climate issues oo maanta dalkeena dhibaato badan ku hayo. waxyaabaha maanta dalkeena ka taagan hadda aragtaan waxa waaye yani hadda dalkeena abaara ka taagan. ilaahayna nooma keena waxay isku bedeli rabtaa abaarta hadda taagan faamin. waan dareemi karnaa xaaladda maanta dalkeena ka jirto. soo marka su'aasha taagan waxay tahay xaalufinta dhirta saameynta ee dalkeena maanta u geysato. saan ka warqabno dalkeena yani xaalufinta dhirta dalkeena waxa uu istaagay dad wax ma garata ah oo aan fahansanayn muhiimadda dhirta ay leedahay, muhiimadda ay dhirta leedahay aan waxba ka aqoonin. soo marka waxay u istaageen markay inay xaalufiyaan dhirtii, inay tagaan meelaha dhirta ugu muhiimsan
dalkeena waxaa jirto dhir hadday yacni dabargoodo ama la jaro ay kumanaan sano qaadanayso inay soo baxdo soo marka dhirtaas waxay ku fiican tahay marka in dhuxul laga suubiyo soo marka waxay u istaageen marka inay dhirtii baabaashaan inay dhirtii jaraan iyadoo ay ka dhalato marka maanta in dalkeena abaar fatahaad ay sanad walba ku soo laalaabato hadda xaaladda dalku lagu jiro waa abaar waxyaabaha inta badan fududeeya ama consequence ku ahna waxaa waaye in dhirta la jaro haddii dhirta la jarana waxaa waaye wax ka dhalan kara waa dareemi karnaa soo marka dadkeena Soomaaliyeed kuma wacyigelisano ma fahansano yani muhiimadda ay dhirta leedahay hadday fahansanaa lahaayeen maanta xaaladda ku jirno yani kuma jiri lahayn ama santahay waxaan u baahanahay reports sheegayo dhahayo mataqaanaa wadanka xaalufin noocaas ah dhacday sanadkii la soo dhaafay 5 sano ugu dambeysay abaarahan soo noqonayo mug intaas leego geedaa la xaalufiyay wadanka marka report noocaas xareed haddaan u sheegi kartid sanadkii 2012 ilaa sanadkii 2017 hay-adda FAO oo kaashanayso dowladda Soomaaliya agaasiga deegaanka waxay soo saareen ayagoo adeegsanaya satellite imagery waxay soo saareen in Soomaaliya laga jaray 8 milyan oo geed taasoo macnaheedu tahay in every 30 second ama 30 daqiiqo ama 30 second in laga jaro Soomaaliya hal geed halka daqiiqo laba geed ayaa la jaray inta u dhaxaysa 2012 ilaa 2017 wixii ka dambeeyay lama sameeynin cilmi baaris sax ah laakiin waxay noqonaysaa dadkina way ka sii bateen dadka miyiga magaalada soo galay magaalada Muqdisho sidaan aragno inta badan maalin walba waxa la soo geliyaa intaas oo gawaari oo ay sidaan qoryo ama geedo dhuxul la rabo in laga sameeyo marka consumptionka dadkina waa batay dadkina waa kordhay marka inta la qiyaasay waxa laga yaabaa markii lagu qiyaasay 30 ilbiriqsi hal geed hadda waxa laga yaabaa in 30 ilbiriqsi 3 geed ama 2 geed inay noqoto ma santahay dhibaatada wadanka ka jirta si xal looga helo mar walba doorka ugu horeeya waxaa leh dawladda ayadaa la rabaa inay siyaasad ka yeelato shuruuc ka soo saarto regulation ay soo saarto markaa kadibna dhaqan geliso marka su'aashaan weydiinayo Cabdisalaan ma jiraan Cabdisamed ma jiraan muxuu ahaa policy iyo shuruuc iyo regulation dawladda ay ka yeelatay arrimaha deegaanka iyo mataqaana climate change-ga iyo wixii laga qaban lahaa iyo sidii loo wajihi lahaa bismillaah marka laga hadlayo dhanka shuruucda iyo dawladda waxaa jirta horta dawladdu 2019 waxay diyaarisay National Climate Change Policy lagu talagalay in lagu hago siyaasadda guud ee deegaanka wadanka 2020 waxay diyaarisay siyaasadda qaran ee isbeddelka cimilada 2022 haddana waxay diyaarisay siyaasadda qaran ee dhuxusha laakiin wali siyaasadda dhuxusha may baas garayn golaha wasiiradu oo wali laba dhamaystirin waxba ka dhiman waxa kale oo isaguna jira National Environmental Management Bill oo ah qofka geed gooya siyaasaddu ma sheegto qofkaas maxaa lagu xukumaya ama maxaa ganaaxa ee qabanaya ama maxaa xabsiga lagu xukumaya siyaasaddu ma sheegto laakiin Environmental Bill Management-ka ama Environmental Act-ga ayaa sheegaya isagana waa la dhamaystiray golaha wasiirada waanu geynay waa laga baasgareeyay hadda wuxuu hor yaalaa labada gole ee baarlamaanka ayaga ayaa uu la yaala hadda oo shaqadooda ka qabsan doona final iyaga markay baasgareeyaan ayuu noqon doonaa sharci guud oo dalku u leeyahay oo u baahan fulintiisa caqabadaha ugu waaweyn oo haddaanu de hadda baan curanayo aanu wasaarad noqonay markii hore agaasin baanu hayno challenge badan ayaanu la kulmayn caqabadaha ugu waaweyn naga hor imanaya waxa kamid ahaa in aanu sharci deegaan jirin oo qofku markuu xadgudub deegaan sameeyo wax lagu xakameynaya ama lagu xukumayaa inay jirin sidoo kalena arrinta security issue-ga oo wadanka oo deegaanku de magaalada maaha
waa hawdka in la tago iyadana xaaladda ka jirta waa ognahay oo xaalad aan caadi ahayn iyaduna saamaynteeda ayay lahayd laakiin hadda waxaan rajaynaynaa bal inta aan laba gaadhin hawdka iyo kaymaha intaan la gaadhin dhuxusha iyo marka laga hadlayo dhirgoynta inta ugu badan saamaynta waxay ku dhacdaa waa dhulka kaymaha ah ayaa khataraha ugu badan ka jira gaar ahaan jubbada hoose waa shaqada ugu badan iyo dhibta ugu badan ee ka jirta xataa halka assessmentka imika uu xareed sheegaya laga sameeyey waxa weeyaan waa jilib area oo waana dhulka ugu dhirta badan leh waddanka marka laga hadlaayo iyo deegaanka ugu muhiimsan arrimahaas waxay u baahan yihiin waxaa xal loo waayey dhuxushii la soo gooyey ee dekedda lagu qabtay ama lagu qabtay controolka magaalada lagu qabtay wixii lagu xukumi lahaa baa loo waayey because sharci xeer ilaalintu sharci baa wax ku xukunta sharciga waa in la helo marka hadda sharcigaasi final buu marayaa golaha baarlamaanku markay baaskareeyaan waxaan is leeyahay laamaha amniga ayuun baan la kaashan doonaa iyo booliiskii iyo qaybihii loogu talagalay fulinta sharciga waa mahadsantahay marka xal loo raadinayo problemkan oo cimilada isbeddelkeeda waxyaabaa loo baahan yahay waxaa ka mid ah awareness badan iyo ka qayb qaadasho bulshada rayidka iyo wixii la midka ah marka axmed waxaan rabay inaan ku weydiiyo haddaad noo sheegi karto maadaama Somali Environmental Forum aad ka socoto forumyo iyo kulamo iyo sabaabul iyo qorshooyin ma jira iyo shirar ku saabsan wacyigelin iyo sidii mataqaana wax looga qaban lahaa deegaanka howlo noocaas ibraahim aad u mahadsan tahay horta xaqiiqda marka laga hadlo dalka yani dhalinyarada inta badan hadda environmentii ka barato aad u yar tahay oo waxa way jaamacadda ummadda had inta badan environmentii bixiso jaamacadaha kalena waa laga yaabaa inay baxshaan soo marka hadda waxaa aad u farxadii gelinaysaa oo environmentii 2 sano ka shaqeynayay inay maanta jiraan dhalinyaro u istaagtay inay environmentii ka shaqeeyaan inay ka hadlaan inay u ololeeyaan inay meelaha environmentii looga hadlaayo tagaan ka Somali Environmental Forum ahaan markaan yani istaraatiijiyadda noo degsan waxay ahayd yani inta badan wacyigelin sameeyno programme badan oo hadda aan qabano waxaa jirto oo ah yani saameynta isbeddelka cimilada ee Soomaaliya ku yeelatay xaalufinta dhirta xal u helida fatahaadaha dalku soo laabtay iyo arrimo kale kulamo badan oo waxaa jirta Twitter Space-ka iyo Zoom meeting aan ku qabano oo aan keenno dad expert ah dad wax ka yaqaan arrimaha environment-iga si xal loogu gaaro dhibaatooyinka environment-iga maanta ama deegaanka dalkeena ka taagan dadkaasna inta badan dadku waxay la wadaagaan expertise-ka ah inay yani si deeply ah uga hadlaan arrimahaas soo marka waxaan gaarnay kulamo badan waa qabanayo oo arrimahan environment-iga looga hadlayo hadday noqon lahayd xaalufinta dhirta fatahaadaha climate change-ga maanta dalkeena ka taagan iyo arrimo kale soo marka waana sii wadi doonaa hadduu alla idmo kulamada iyo wacyigelinta sare loogu qaadayo deegaankana waa responsibility qof walba saaray inuu ka shaqeeyo waa mahadsantahay waxaa lagama maarmaan ah haddii policy la sameeyo haddii shuruuc la sameeyo haddii qorshooyin la sameeyo institutionno capacity leh oo fulin karo marka xareed waxaan rabay inaan ku weydiiyo anoo og inaad meelo badan oo environment iyo climate la xiriiro aad ka soo shaqaysay yani hay-adaha iyo institutionada loo baahan yahay si capacity loo helo awood in xal loo helo laga hortago la yareeyo arrimaha la xiriiro isbeddelka cimilada iyo saameynta ku yeelanaysa bulshada haddaad noo sheegi karto what capacity loo baahan yahay waa mahadsantahay ibraahim marka hore fursaddan waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto inaan u mahad celiyo madaxweynaha qaranka mudane xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamza oo xukuumaddooda cusub ku soo daray in la aasaaso ama in la dhiso wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada oo noqonayso marka laga hadlaayo tayada awoodda hay-adaha dowladda midda ugu horrayso taas ka soko dhisidda wasaarad waxyaabaha loo baahan yahay waxay tahay cilmi baaris waddankeena jaamacado badan way jiraan inta badan focuska lama saaro waxyaabaha researchka experimental researchka ah ama researchka la xiriiro waxyaabaha waddanka u baahan yahay sida tan hadda aan ka hadlayno ah xaalufka dalka markii ugu dambeysay coverageka la sameeyey forestiga waddanka ama intuu la egyahay kaymaha waddanka waxay ahayd 14%
soomaaliya oo bedkaas leh yani in 14% oo ay tahay kaymaha u yaalo oo haddana aan ognahay waxa ku socdo yani xaalaf ku socdo aan jirin yani cilmi baarisyada la saarayo iyo hay'adaha la dhisaayo waxay qayb ka qaadanayaan xalkii saxda ah in la baaro marka waxaa loo baahan yahay in la helo hay'ad cilmi baaris oo ah climate research center dowladda ha dhisto ama meel kale ha ka imaato hadda waxaa soo kordhay IGAD climate excellency center oo climate change ka hadlayo oo regional ah laakiin Soomaaliya hadda mar dhow laga aasaasay oo laga sameeyay sanadkan hay'adahaas la sameeynayo waxay qayb ka qaadanayaan tayeenta awoodaha hay'adaha kale waxay kaabayaan sidoo kale in la sameeyo wax loo yaqaano National Environmental Management Authority wasaaradda marka la sameeyo waxa loo baahan yahay hay'adahaas marka waxay ka shaqeynayaan implementationkii ama dhaqangelintii shuruucyadii iyo waxyaabihii la xiriiro tan kale ah in ay yar tahay aqoonta deegaanka cilmiga deegaanka iyo climate change la xiriiro wadanka waxaan maleynaa magaalada Muqdisho jaamacadda ummadda kaliya ayaa bixiso 4 sano ka hor markii aan aasaasina kuliyadaas xitaa lama hayn macallimiin wax ka dhig macallimiintu waa yaraayeen dad xiiseynayaan way yaraan laakiin hadda waxa soo baxay taas oo kale marka in la badiyo hay'adaha noocaas oo kale ah waxay qayb ka qaadanaysaa tayeenta shaqada iyo shaqaalaha iyo qabsiga isbeddelka cimilada marka laga tago shuruucda siyaasadda hay'adaha iyo qorshooyinka waxa lama huraan ah iyo capacity-ga waxa lama huraan ah resource in funding loo helo hawlaha lagu yareynayo ama looga hortagayo cimilada isbeddelka cimilada saameynta yeelanayso iyo environmentiga degradation ku dhacayo iyo wixii la midka sida haddaan ku weydiiyo Cabdisamed ama midkiin Cabdisamed haddaan ku weydiiyo xagee aad isleedahay resource and funding laga heli karaa ama ay dawladda ka heli kartaa ama bulshada rayidka ay ka heli karaan si cimilada isbeddelka ku dhaco saameynta ay ku yeelanayso Soomaalida iyo livelihoodkoodii noloshooda xagee wax ka heli karaan bismillaah kulley aniga taladayda saameynta isbeddelka cimilada waxaan soo sheegay 4 faktor ugu muhiimsan inagana saameynaya ka ugu badan ee imika 100kii sano u dambeeyay Soomaaliya ku soo noqonayay waa abaaraha okay soo gaab please anigu waxaan soo jeedin lahaa haba yaraatee dawladdu waa inay fund allocation u samayso budgetka dawladda waa in lagu daro miisaaniyad lagaga jawaabo abaaraha iyo masiibooyinka waddanka ku soo noqonaya oo marka ay masiibo dhacdo aan la orordin aan la odhan yaa wax na siinaya aan la odhan yaa na quudinaya markaad adigu haysata wax lagugu daraya anigu waxaan u lahaa budgetka dawladda ee la samaynayo ee yearliga la samaynayo sanadkii haddii institutionka ugu yar dawladda waan ognahay wuxuu isticmaalaa 500 kun beeriyad haddii aas institutionka ugu yar laga soo qaado oo 500 kun khasnadeeda loogu shubo ilaa sanad walba disaster dhici maayo marka 2 sano u dhici waayo sanad sano u dhici waayo ugu yaraan waxaad degdeg hore kaga jawaabto haysataa markaas adduunku wax kugu soo daraya taas horta anigu waa taladayda aan lahaa dawladda iyo budgetka inagu aynu haysanno aynu institutionada aynu gelino aynu ka bilowno masiibadan markaas aynu soo noqonaysa inuu wax meel u dhigno waa maasan tahay marka waqtigii sessionkan intaas loogu geeyay waxa rabay hal daqiiqo inaan ku soo koobo isbeddelka cimilada ku dhaco saameynta ay waddankeena Soomaaliya dadkii iyo xoolihii beerihii ay ku yeelanayso waa mid muuqato la taaban karo sanad kasta soo noqoto waxaad aragtaan barakacyaal tiro badan oo sanadkii dhaco abaaro daadad ka soo yaaco marka in la yareeyo dhibaatada gaar ahaan Soomaalida ay ka geysanayaan deegaanka midda kale oo global aan la wadaagno waa waxa kama qaban karno awareness iyo tababarro waxa loo baahan yahay iyo aqoon waxa loo baahan yahay policy dawladda cad inay ka yeelato oo qorshe siyaasadeed ah waxa loo baahan yahay shuruuc iyo regulations iyo awood fulin inay yeelato waxa kaloo loo baahan yahay in research la sameeyo
oo institutionada gaar ahaan la sameeyey oo kale iyo civil society inay research sameeyaan badan oo ku saabsan cimilada iyo deegaanka muxuu ahaa faa'iidadooda iyo waxa ka soo gaaro dhibaatada ay keenaan iyo dhaqaalaha ay dadku u yeeshaan waxa kale loo baahan yahay in ma garanaysaa institutionno capacity-gooda la dhiso oo ma garanaysaa tababarro joogto ah in loo sameeyo gudaha iyo dibaddaba forumyada adduunka laga qayb qaato oo awareness badan adduunka wax ka dhacayo cimilada isbeddelkeedii waxeedii laga mid noqdo oo la tago funding waa loo baahan yahay hay-ado international ah jiro fangareeyo iyo dowladdaba inay qorsho iyo miisaaniyad gaar ah u yeelato runaantii waa wax lagu baraarugo oo muhiim ah in priority la sameeyo waxaan u mahad celinayaa panelka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin macluumaadka iyo khibradda ay nala wadaageen oo ku saabsan climate change adaptation runaantii adinkana aad baad u mahadsantihiin si aad u dhegaysateen wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu